السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الكريم. كسو دوا جانك شكا ميديا برودكشن. maanta cashirkeena koowaad wuxuu noqonayaa sidee ayaa la iskugu xiri karaa mobilkaaga iyo kombiyuutarkaaga. haddaba qaabka la iskugu xiro mobilka iyo kombiyuutarka ayaan jeclahay in aan ka hadalno ama aan soo bandhigo maanta. Number 1 waxaan u baahanahay application la yiraahdo Wondershared. applicationkaas ayaad kombiyuutarkaaga ku shubanaysaa. ugu horreyn waxaad tegaysaa mobile setting-ga. markaad ku dhufato mobile setting-ga tan halka ugu hooseyso ee ku qoran tahay about device ayaad ku dhufanaysaa. dan markaad ku dhufatid waxaa ku soo baxaya option badan. waxaa ka sii dooranaysaa soft info markaad ka doortid waxaa raadinaysaa meel ay ku qoran tahay build number. dan halkaas ayaad double click ayaad ku leedahay ilaa ay tirada ay ka dhamaato. markay halkaas aad double click ku tiraado waad ka noqonaysaa. haddana waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay develop option. halkay ku qoran tahay ayaad ayadana furaysaa. waxaad sii furaysaa aad on ka dhigaysaa meesha ay ku qoran tahay USB navigate ayaad on ka dhigaysaa. dan marka intaas aad samayso mobilkaaga intaas ayuu kugu saxan yahay. wax kale aad ma baahnid mobilkaaga. kadib markaa mobilka saas aad u saxatid waxaasaan soo furinaysaa applicationkii oo kan ah oo Wondershared Micro. dan applicationkan ayaan soo furinaynaa. applicationka markuu soo soo baxo wuxuu leeyahay connect USB device, yani ku xir mobilkaaga USB-ga geli. haddii kale waxaa u isticmaali kartaa wifi. anaga hadda iska weyn ma u baahnin wifi-gaas. cashir kale ayaan ka soo diyaarin doonaa. marka waxaan hadda aan cashirkeena uu ku saabsan yahay waa USB qaabka lagu xiro. marka USB-ga ayaan mobilka gelinayaa si uu kombiyuutarka isku xiro. USB-ga hadda markaa gelinay wuu soo raadinayaa ilaa tiradaas 100 ay ka gaarta ayaan sugaynaa. waa u jeedaa inuu dhameeyo tiradii. marka sidaan markuu ku soo saaro optionkan halkaas ay ku qoran tahay agree ayaad okay leedahay. halkaas ayaad okay leedahay. dan waa kasaa inuu kombiyuutarka iyo mobilka isku xiran. hadda inaan shaashada mobilka ayaan ka wadaa adigana halkaas ayaad ugu jeedaa oo mobilkaygu wuxuu ku xiran yahay kombiyuutarkayga. ayaan isku xiray mobilka iyo kombiyuutarka labadaba way isku xiran yihiin. waxaana ugu dhexmariyay waa USB. hadda USB ka saaro way ku go'ayaan. laakiin haddii aragtidna muuska waa u isticmaali kartaa oo kombiyuutarka waad ka wada kartaa. meeshaad doontaa ka tagi kartaa. wax walba waa ku samaysan kartaa. waa mideeda kale applicationkii oo Wondershared Micro ahayna waa u jeedaa inuu halkaasi uu soo galay oo yacni si automatic leh asiga ayaa isku install gareeyay mobilka oo markii hore aanan maansan dejinin inuu u joogo. marka waad ku maasan tahay daawashada fiidiyoga. please subscribe to our channel ka. cashiro kale oo badan aad ka heli doontaan waa idin soo insha Allah. waa walaalkiin Abshakuro idin leh Ramadan Kareem.